Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma ogtahay in beedka adduunka ugu weyni uu yahay beedka gorayada? Ma ogtahay in ayax-badeedku yahay xayawaanka keliya ee calooshiisa dibadda keeni kara? Ma ogtahay in dadku yahay noolaha qudha ee dhabarka u seexda? Ma ogtahay in uu farasku awoodi karo in uu cagihiisa ku taagnaado bil dhan? Ma ogtahay in maahmaahda tidhaahda hal libaax arkaysaa ma godlato ay bixisay haweeney Soomaaliyeed? Ma ogtahay in saxaabigii Khaalid bin Waliid weligii aanan dagaal lagu jabin? Ma ogtahay in kaneecadu 100 indhood ay ku leedahay madaxeeda? Ma ogtahay in yaxaasku yahay xayawaanka keliya ee daamankiisa hoose dhaqdhaqaajiya marka uu wax cunayo? Ma ogtahay in kaneecadu ay leedahay 47 ilig, bakayluhuna 28 ilig, maroodiguna 32 ilig, geeluna 34 ilig, eyduna 42 ilig? Ma ogtahay in aad maalintii ku hadashid erayo gaadhaya 5,000 oo eray, laakiin 80% aad naftaada kula hadasho? Ma ogtahay in quraanjadu ay tahay xayawaanka keliya ee aan seexan? Ma ogtahay in saxaabadii Qur'aanka qori jirtay markuu soo dego ay ahaayeen kuwan soo socda: Sayid binu Thaabit, Ubay binu Kacab, Mucaad binu Jabal, Mucaawiya binu Abi Sufyaan, iyo afartii khaliif Abi Bakar, Cumar, Cuthmaan iyo Cali binu Abi Daalib? Ma ogtahay in Cusmaan binu Cafaan uu guursaday 2 hablood oo uu Nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalay, Ruqayya iyo Umu Kalthuum, waxaana u caan baxay 2 nuur leh? Ma ogtahay in Xaaji Aadan Afqalooc uu ahaa gabayaa weyn oo Soomaaliyeed oo noolaa 120 sano? Mise ogtahay in Xaaji Aadan Afqalooc uu 30 sano qaadi ka ahaa magaalada Qudus ee imika ay Yuhuuddu haysato? Mise ogtahay in Xaaji Aadan uu yaqaanay kuna hadli jiray 43 luqadood oo ay ka mid yihiin Carabiga, Ingiriisiga, Faransiiska, Hindiga, Af-Xabashiga, Farrisiga iyo Baantuuga? Xigmadihii uu reebayna waxaa ka mid ah gabaygiisii ahaa: Saxarba waa dilaa nimaan wakhtiga sad ugu laabnayne, nin naftiisa amarkeed gabaa ma abiyo khayrkeede.